بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ولا إله إلا هو سبحانه وتعالى. marka hore aan ku mahadinaynaa noo suurtageliyay inaanu duubno fiidiyowgan oo ay nagu khasabtay ardayda cusub oo aan garanayn qaabka loo furto demo account ama MT4 loola soo dego. marka insha Allah inta tabarteena ayaanu ka caawinaynaa insha Allah. waanu bilaabaynaa insha Allah cashirkeena soosan waqtigu nagu dheeraan. bismillahir rahmaanir rahiim. marka hore waxaa sameynaysaa qaabka aad ula soo degayso MT4 iyo qaabkaad u furanayso demo account iyo qaabkaad trade-ka u qaadanayso iyo qaabka aad iskaga xirayso trade-ka iyo qaababka kale oo lacagaha lagu soo darsado insha Allah ayaan isla fiirinaynaa. marka hore waxaa insha Allah tagaysaa Play Store-kaaga. Play Store-ka markaad tagtid meesha searching-ka ayaa waxaa ku qoraysaa MT4. searching ayaa dhahaysaa. okay, internetka ayaa iga xirnaa. MT4 markaa iri aniga hadda waa igu jiraa. marka MT4 iri waa meta trader 4 forex training ayaa ku qoran. open ayaa dhahaysaa. aniga hadda waa igu jiraa mobilkeyga oo waa igu save gareysan yahay. halkana waxaa ku furan deemooyin badan. marka insha Allah waan bilaabaynaa. marka aad la soo degto ama mobilkaaga uu ku soo dhex dego, mobilkaaga ayaa ka soo dooranaysaa meeshan saddexda dhibcood ayaa dooranaysaa. waxaa dhahaysaa manage accounts. manage accounts marka tiraahdo si aad account cusub u furato waxaad taabanaysaa meesha balance-ka ah. laba option ayuu ku siinayaa. option koowaad waxaa weeye open demo account, demo account furo, ama login existing account ama account real ah oo aad broker iska soo diiwaangelisay username-kiisa iyo password-kiisa gasho ayuu ku dhahayaa. marka waxaan anagu hadda fiirinaa insha Allah waa real account, demo account ayaan furanaynaa. halka ay broker ayaa ku qoraysaa Excelity. aniga waxaan isticmaalaa IC Market-kaas badanaa deemada ayaan ka isticmaalaa. IC Market 3 ayaa ku qoraysaa. wax yar aan gadaal noqdo. demo account ayaa soo dooranaysaa. IC Market 1 2 3 waa dooran kartaa. badanaa anigu 3 ayaan doortaa ama 1, labada mid ayaan doortaa. okay, halkan waxaa ku qoraysaa magacaagii. bilmasna magacayga waa Cabdiqani. halkan waxaa ku qoraysaa lambarkaaga. halkan waxaa ku qoraysaa gmail-kaaga. okay, information-kii account-ka ayaan buuxinaynaa. halkan account type waxaa weeye ECN audio. waa lacagta adiga deposit ku noqonaysa. waa dooranaysaa deposit waxaa ka dhiganaysaa addoon waddanka joogta ayay ku xiran tahay, ama GBP ka dhigo ama euro ka dhigo. badanaa USD ayaan ka dhigtaa. tan labaadna waa leverage-ka oo ku sahlaya in account-kaaga uu tareeriyo badan galo ama awood ku siinaya inuu tareeriyo badan aad furan karto. leverage-ka 1.1 waa ka dhigi kartaa. waxa ugu fiican oo at least ugu fiican 1/5. okay, deposit-ka waxaa ka dhiganaysaa lacagta doonta ayaa dooranaysaa. 3,000 ayaa ugu yar badanaa deemooyinka. 3,000 ayaa dooranaysaa. grid account ayaa dhahaysaa. u wareegaya.
markii waa iga diiday management mar labaad ayaan kusoo celinayaa waayo cabdiqani hore ayuu ii sheegayaa inuu jiro AC market demo 03 halkan magac ayaan bedelayaa bilmasan waxaan ka dhigayaa ustaadka magaciisa oo gale Yajim ustaad Yajim lambarkiisa emailkiisa type-ka ayaan dooranayaa type-ka waa USD 1/5 3,000 ayaan dooranayaa Yajib Hussein magac ayuu ku daryiri okay waa ii furmay ustaadka magaciisa ayaan dooranay hadda demo ayuu noo soo baxayaa okay waa kana hadda lacagii at least basic ah ayuu meesha noogu soo guray hadda lacagta noogu jirtay marka balance-igana waa $3,000 marka waxaan ku xijinaynaa step-ka labaad oo meesha aan lacagaha uga soo darsanayno meesha balasta ayaa ku dhufanaysaa forex minor iyo forex exotics labadaas ayaa ku soo darsanaysaa mid kasta marka taabatay ayaa soo gelaysa kaliya marka siiso saas isku soo tuurayaan lacag dhamaan marka kaliya siiso tan ka noqo forex exotics ayaan tagayaa iyagana lacagaha muhiimka ayaan ka soo guranayaa oo la trade gareeyo ma arka lacag halkan la trade gareeyo okay lacagi waa kuwa igu jira at least marka aan sameynayo hadda lacagi waa igu jiraan trade marka aan sameynayo waxaan sameynayaa lacagta bil masalan aan rabo in aan kale ayaan ku dhufanayaa dusheeda afar option ayaa soo baxaya menu order ku qoran tahay iyo open charts iyo symbol properties iyo advanced view mode meesha ugu sareysa waa new order markaan gelayo new dhahayo meesha labaadna waa open charts markaan dhahayo bal aan fiirinayo meesha suuqa charts ka marayo new order ayaan dhahayaa at least halkan waa meesha ugu muhiimsan 0.01 ay ku qoran tahay waa meesha la yiraahdo lot size-ka aad suuqa ku galayso 0.01 baa suuqa ku galaysaa 0.03 at least 0.03 ayaan ku galayaa waayo akoonkayga waxa igu jira $3,000 $3,000 marka ay ku jirto waa inaad 0.03 ku gashaa dhinacan bidix hadda aan qorayo waxaan ku qoraysaa lot size-ka bil masalan 1.223366 dhinacan aan hadda wax ku qoray waxa lagu qorayaa lot size-ka dhinacan kalena waxaan ku qorayaa TB-ga okay ama buy baan dhahayaa ama sell baan dhahayaa labadan mid baan dhahayaa hadda wuxuu ku leeyahay wax ka khaldan stop loss-ka ama take profit-ka ayaa ka khaldan okay marka saa u geliso dhinacana stop loss-ka gashato dhinacana aad take profit-ka gashato waa haddana waxaan joognaa option-kii koowaad oo ahaa market execution waa markaan suuqa toos u gelayo way bil masalan suuqan hadda sell baan u gelaynaa new order okay orderki waa uu furmay waa uu socdaa markaanu sameynayno modify lacagta ayaan ku soo noqonaynaa ku dul dhufanaynaa lacagta ayaan ku dul dhufanaynaa modify order ayaa dhahaysaa marka rabto stop loss-kaaga inaad soo rarato oo entry keensato stop loss-ka ayaa bedelaysaa entry-gaagana waa sii fogeysanaysaa isagana modify ayaa sii dhahaysaa waxa kale oo aan ku darayaa meesha ugu muhiimsan ay tahay balance iyo equity iyo free margin iyo margin lifer iyo margin maxay yihiin balance waa lacagta adiga lacagta ugu jirta akoonkaaga waa $3,000 equity-na waxa weeye waa trade-ka hadda noo furan marka minus iyo khasaare uu yahayba marka lagu daro ama laga jaro intaan lacag haysto bil masalan trade-ka hadda noo furan minus yar ayuu nagu wadaa waa marka ama minus markuu nagu wado ama plus lagu wado marka lacagta laga jaro haraageena ama balance-igana marka laga jaro wixii soo hara weeye equity waa trade-ka hadda noo furan marka minus iyo khasaare wuxuu yahay marka lagu daro ama laga jaro labadaba
waxaa ku xigay free margin. Free margin waxa weeye waa lacagta ku ogolaanaysa inaad inta trade rabto aad gasho oo awood ku siinaysa suuqan weeye. Margin life waxa weeye raashiyada u dhaxaysa marka la isku qaybiyo equity iyo free margin. Margin ba ugu hooseeyana waxa weeye isagana waa marka laga reebo lacagta ama leverage-ka lagu xoojinayo lacagtaada weeye macnaheedu iyadana. Okay, markaan rabo trade-kan oo kale inaan iska xiro isaga ayaan ku dul dhufanayaa. waxay soo baxaysaa meel ku qoran tahay close order. Close order haddana waxaan sii dhahayaa close order. Okay, waa trade-ka waan ka baxay hadda. wax yar oo meels ayuu igu hayay waan ka baxay waan iska xiray trade-ka. marka trade-ka iska xiraysana saas ayaa sameynaysaa isagana. marka waxaan kaloo rabay inaan ku daro balance-gii waa kan intaan khasaaray bilmasana 0.33 ayaan khasaaray. 3,000 ayaa igu jiray. hadda balance waxa igu jira 2,999.33. waxay iga goosteen xoogaa yar commission oo -21 bay iga goosteen. commission laftigiisa waa inaad ku xisaabtantaa. commission laftigiisa waa muhiim. waxaan kaloo rabay inaan ku daro markaan trade soo furanayo bilmasana AUD USD oo kale market execution baa ku dhufanaysaa. afartan option baa hal mar sharxi lahaa insha Allah. tan ugu horeysa waxa weeye buy limit iyo sell limit iyo buy stop iyo sell stop. buy limit waxa weeye waa suuq kor u socda ayaan barayska dhiganayaa bullback kadib kor ayaan u raacayaa suuqaas. sell stopna waxa weeye waa suuq hoos u socda ayaan barayska meesha waxaan dhiganayaa ka koreysa isagana hoos ayaan u soo raacayaa. buy stop isagana waxa weeye waa suuq kor u socda ayaan isbaaro u dhiganayaa markuu barayska suuqa soo gaaro ayuu ii furmayaa barayskaygii oo suuqii kor ayaan u raacayaa. sell stopna waa suuq kor u socda ayaan barayska waxaan dhiganayaa meel uusan soo gaarin suuqa. marka waxaan dhahayaa barayska markuu suuqa soo gaaro selka u socda markaan halka uu soo gaaro aan barayska dhigtay interiga ayuu suuqi ku furayaa hoos ayaad u sii raacaysaa suuqeen isagana. waa saas ayaa labada kuwaasna loo isticmaalaa. market execution waxa weeye waa markaad suuqa toos u galayso oo aad sameynayso order new order markaad sameynayso ama sell dhahayso ama buy aad dhahayso. intii muhiimada ahayd oo MT4 laga isticmaalayay waan dhameeyay ayaan filayaa insha Allah. wixii kalena ustaadka iyo insha Allah leaders kale ayaa ku daraya. waa anigu magacayga Cabdiqani Maxamuud Saciid. waxaan idin kala hadlayaa insha Allah some trade VIB insha Allah. dhammaan waan salaamayaa macallimiinta iyo ardaydaba. insha Allah taala waxaan idinku bogaadinayaa inaanu dul qaadano. suuqana waxa u baahan yahay dulqaad aad u fara badan insha Allah. marka insha Allah aan dadaalno insha Allah inta dhamaanteena aan iscaawino insha Allah. walaalaheen cusubna aan caawino insha Allah taala. wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.